dawada kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada markale barnaamijkan arrimaha siyaasadda ee garqaad media qodobada wararkan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqonaya guddiga farsamada ee maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee maamulkaasi. madaxweyne farmaajo maanta waxa uu gaaray magaalada Asmara ee dalka Eritrea halkaas oo uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Eritrea. Canada waxay sheegtay in hayso cadeymo muujinaya in diyaaradda Ukrainian Airlines ay soo riday dalkaasi Iran xilli wasaaraha dalkaasi uu ku dhawaaqay. Trumpna waxa uu aad ugu maadeystay wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Ahmed iyo weliba bilada la siiyay Nobel Peace Prize-ka. Kongareeska Mareykankana waxa uu u codeynayaa in la xadido awoodda madaxweyne Trump iyadoo ay soo baxayaan warar kala duwan oo ku aadan arrimahaas. qodobadaas iyo weliba qodobo kale oo xiiso leh ayaan barnaamijkan ku soo qaadan doonaa intaan wada ku jirno daawadayaal. fadlan daawada taa qof aan hore uga mid ahayn daawadayaasha barnaamijkeena si aad uga mid noqoto maalin kasta wararkaanu halkan ku soo daabacno. fadlan subscribe saar si aad markasta u noqoto daawadaha koowaad. aanu ku bilownay guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug ayaa maanta soo saaray liiska ilaa 83 xildhibaan ee baarlamaanka Galmudug ay soo xuleen odayaasha dhaqanka iyadoona shaxda liiskan ay ku qoran tahay saami qaybsiga beelaha iyo weliba sida ay u kala leeyeen kuraasta ilaa 6 kursi oo ayaana ka harsan liiska la soo bandhigay ee 83 xildhibaan ay ku jiraan. sida muuqato kuraastaas waa kuwa la isku hayo oo isqabqabsigu ka taagan yahay cidda la siinayo. liiska la soo bandhigay ayaa waxaa ku jira 20 kursi ay soo xusheen Al-Sunna kuwaas oo loo aqbalay toddobaadkii hore. guddiga ayaana sheegay xubnaha dhiman 89 xildhibaan laga soo dhameystiri doono sida ugu dhaqsiyaha badan. liiska xildhibaanada ayaana waxa ay u kala qaybsan yihiin beelaha deegaanadaasi Galmudug iyadoona beelaha qaar la siiyay kuraas badan halka qaarkoodna ay kuraasta lagu yareeyay. walow beelaha qaarna ilaa hadda sida ku cad liiska beesha marxan ayaa la siiyay ilaa 15 xildhibaan halka beesha mursadaan iyagana la siiyay ilaa 12 xildhibaan. beesha Duble ayaa iyagana waxaa la siiyay sida ku cad ilaa 6 xildhibaan 7 xildhibaan dhexe halka dir la siiyay iyagana 8. beelaha kale ayaa iyagana la kala siiyay min 4 halka qaarkood la siiyay 6 5 2 iyo weliba 7. waxaana guddiga ay soo bandhigeen liiskan xildhibaanadu noqonaya kii kama dambaysta ahaa iyadoona ay socoto dadaaladii ugu dambeeyay sidii loo dhamaystir lahaa inta ka harsan xildhibaanada cusub ee deegaan maamulkaasi cusub ee Galmudug. waxaana laga dareemayaa magaalada Dhuusamareeb olaha doorashada ee Galmudug iyadoona madaxweynayaasha u sharaxan xilka madaxweynaha ee maamulkaasi Galmudug ay wadaan dadaaladoodii ugu dambeeyay sidii ugu guuleysan lahaayeen xilka madaxweynenimo ee maamulka Galmudug. waxaana ilaa hadda magaaladaasi ku sugan ilaa 4 musharax madaxweyne kuwaas oo wado dadaaladii ugu dambeeyay maadaama maanta lagu dhawaaqay liiska xildhibaanada cusub ee ka mid noqonaya soo dooran doona madaxweynaha cusub ee Galmudug. madaxweynaha dalka mudane Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Asmara halkaas oo garoonka diyaaradaha uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha dalkaasi Eritrea Aziz Afwerki. wafdiga madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa kamid ah gaasimaha madaxtooyada Nuur Fursade safiirka Soomaaliya midowga Yurub Ambassador Ali Saciid wakiilka gaarka ah madaxweynaha u qaabilsan Geeska Afrika gacanka cadan iyo badda cas Balaal Cusmaan. madaxweyne Farmaajo ayaana kulmo leh dhigiisa Eritrea iyadoona laga wada hadlayo xiriirka labada dal iskaashiga weliba arrimaha amniga. sidoo kale waxaa kulankooda looga hadli doonaa arrimaha gobolka Geeska iyo weliba isbahaysiga cusub ee dhawaan uu Sacuudiga aasaasay ee dalalka badda cas iyo weliba gacanka cad. madaxweyne Farmaajo ayaana xiriir soke oo aan la fahamsaneyn la leh keligii taliyaha reer Eritrea Aziz Afwerki waxaana dad badan ay shaki gelinayaan xiriirkaas waxa uu ku dhisan yahay. labada madaxweyne ayaa horey u dhex maray heshiis amni ah waxaana muddooyinkii ugu dambeysay jiray ciidamada dowladda Soomaaliya u dirtay Eritrea si loogu soo tababaro waxaana ciidankaasi la sheegay in loogu talagalay doorashooyinkaas soo socdo. walow ilaa hadda aan la cadeynin waxyaabaha rasmiga ah ay ku kala heshiiyaan Eritrea Soomaaliya iyo weliba xiriirka cusub oo u bilowday. haddana madaxweyne Farmaajo ayaa booqashooyin kala duwan ku tegay magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea. waxaana uu madaxweyne Farmaajo sidoo kale ka mid yahay isbahaysiga
geeska Afrika ee ah wadamada Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya kuwaas oo ku heshiiyay xiriir wada tashi iyo waliba sidoo kale mid ganacsi oo ugu horeyso arinta amniga iyo iskaashigeeda taasoo ay kamid yahay wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy madaxweynaha dalkaasi Eritrea Isaias Afwerki iyo waliba madaxweyne Farmaajo walow ilaa hadda aan la sheegin waxyaabaha ay ka wada hadleen labada dhinac haddana waxaa la soo qaadi doonaa xiriirka labada dowladood iyo waliba waxyaabaha ku aadan inkastoo ay soo dhowdahay doorasho uuna madaxweynaha dalka Cabdullaahi Farmaajo wali ku dhawaaqin arrimaha ku aadan nooca doorashada dalka ka dhacaysa haddana madaxweynaha ayaa la aaminsan yahay inuu wado dadaaladiisii ugu dambeeyay waliba sidoo mar kale dib ugu soo laaban lahaa kursi dhanka kalena dowladda dalkaasi Canada gaar ahaan wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa waxa uu sheegay in hay'ad cadeymo muujinaya in diyaaradii laga lahaa dalka Ukraine ay ku soo dhacday gantaal ay rideen ciidanka Iran wasaaraha ayaana sheegay in loo baahan yahay in baaritaano dhammaystiran lagu sameeyo isagoona tilmaamay in sirdoonka dalkiisa iyo kuwa xulafada la ah ayaan cadeymo muujinaya in Iran ay soo riday diyaaradaas cadeymo aan ka helnay sirdoonka xulafadeena iyo waliba kuweenaba waxay muujinayaan buu yiri in diyaaradda dhacday uu soo riday gantaal ay gantay dalkaas Iran waxayna arinta ahayd mid ula kac ah oo si ula kac ah loo sameeyay diyaaradda laga lahaa dalka Ukraine ayaa waxaa saarnaa in ka badan 176 rakaab kuwaas oo kala bar u dhashay dalkaasi Canada warbaahinta Mareykanka ayaana taabiyay in diyaaraddu ay ku soo dhacday gantaal ay la dhaceen ciidanka Iran taasoo ahayd si kama xilligii ay duqeynayeen saldhigyada Mareykanka ku leeyahay dalkaasi Ciraaq dowladda Ukraine ayaana dalbatay dalka Canada inay kala qayb qaadato baaritaano caalami oo lagu sameeyo diyaaradda soo dhacday iyo sababta ay la dhacday kadib markii ay soo baxeen warar ku saabsan in gantaal ay riday Iran uu ku dhacay diyaaraddaasi walow Mareykanku isagana uu sheegay in diyaaraddaasi ay soo rideen dalka Iran haddana Iran ayaa gabi ahaan arrintaas iska fogeysay iyadoona sheegtay in gantaalkeedii iyo waliba jihada diyaaraddaasi ku socotay aysan midnaba islahayn waxayna sheegtay in baaritaano ay socdaan isla markaasna ay ka soo sheegi doonaan dib wixii ka soo baxo baaritaanadooda madaxweynaha dalka Mareykanka ayaana sheegay in dadaal iyo waliba heshiis uu sameeyay Ethiopia kaga badbaaday dagaal balse bilada nabadda Nobel ka la siiyay wasaaraha dalka Ethiopia Trump ayaa arrintan ka hadlay mar uu fagaaro ku yaalo Ohio maalintii Khamiista ay kula hadlayay taageero badan waxaan wax idin kaga sheegayaa buu yiri abaalmarinta Nobel waxaan galay heshiis waxaana badbaadiyay dal kadib waxaan maqlay in madaxda dalkaas uu helay abaalmarinta waxaan ka hortagay dagaal weyn kuwa badan ayaana badbaadiyay ayuu yiri Trump oo ku jira ololihii doorashada ee xilliga Mareykanka ayaa waxa uu wadaa dadaaladiisii ugu dambeeyay iyo waliba khudbadooyinkiisii ugu dambeeyay ku aadan sidii uu soo jiidan lahaa codbixiyaasha dalkaasi Mareykanka u dhashay Trump ayaana la aaminsan yahay in uu sameynayo isbedel kasta iyo waliba awood kasta sidii mar kale kursiga madaxweynaha ee dalkaasi Mareykanka ugu soo laaban lahaa waxaana sidoo kale la sheegayaa in xaaladda bariga dhexe oo horeysa uu ugu jirto dan weyn Mareykanka maadaama xilli doorasho lagu soo jiro isla markaasna madaxweyne Trump uu sameynayo wax kasta uu kursiga madaxweynaha ee dalkaasi ugu soo laaban lahaa waxyaabahaasi waxaa kamid ah dilkii uu loo geystay Jenaraal Suleimani kaasoo oo la sheegay in amarka kama dambaysta uu bixiyay madaxweyne Trump waxaana Trump arintaasi ku sheegay inay tahay mid lagu joojinayo dagaalka bariga dhexe balse dadka falaqaya arrimaha siyaasadda bariga dhexe iyo waliba midda Mareykanka ayaa arintaasi ku sheegay in madaxweyne Trump uga dan leeyahay sidii xilka madaxweynimada dalkaasi Mareykanka loogu dooran lahaa maadaama uu la doorasho uu ku jiro ugu dambeyn Koongareeska Mareykanka ayaa waxay codeen qaraar lagu xadidiyay awoodda militariga ee madaxweyne Trump uu la leeyahay inuu dagaal ku qaado Iran qoraalkan ayaa waxaa isku raacay inta badan xildhibaanada Koongareeska iyadoona aan weli loo gudbin aqalka sare oo ay ugu badan yihiin xisbiga jamhuuriga talaabadan ayaan loogu gol leeyahay sidoo madaxweyne Trump Koongareeska ugu soo wargelin lahaa talaabo walba oo militari oo ka dhan ah Iran waxaase laga reebay haddii Iran ay weerar ku soo qaado Mareykanka taasoo madaxweynaha xaq u leeyahay inuu iclaamiyo dagaal dalalka Mareykanka iyo Iran ama aanan shaacinin dagaal militari oo dhexmara inkastoo Iran ay sheegtay in weerarkii dhawaan ay ku qaadeen saldhigyada Mareykanka Ciraaq uu bilow way ahaa talaabo
tallaabooyinka militari ay damacsan tahay. Koongareeska Mareykanka ayaa cuskaday xeerarkii awoodda dagaalka ee sanadkii 1973 kaas oo aqalka Koongareesku awood u siinayo inay eegaan awoodda madaxweynaha u leeyahay inuu dagaal iclaamiyo. hase yeeshee waxaa weli taagan su'aalo la xiriira dhanka sharciyada taasi oo Koongareesku cuskan karo qodobadaasi markay timaado. Afhayeenka aqalka Koongareeska Nancy Pelosi ayaa markii Mareykanku uu dilay Qaasim Suleymani waxay sheegtay inaysan aaminsaneyn in Trump uu nabadgelyo ku soo dadaalay Mareykanka, balse Trump oo ka hadlay qaraarkan ay u codeeyeen Koongareeska ayaa sheegay inuu rajeynayo in xisbiga Jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay ay qaraarkan ku gacan saari doonaan markay timaado codeynta. Arrintan ayaana timid kadib markii Iiraan ay weerartay saldhigyada Mareykanka ee uu gulayaa gudaha dalkaasi Ciraaq. Trump ayaana sheegay inaysan jirin dad Mareykanka oo wax ku noqday weerarkaasi, burbur aan weyneyn ku soo gaaray xarumahaasi. Wuxuuna Trump sheegay in Iiraan ay u muuqato inay dib u dhageyso oo ay nafistay. Mar uu la hadlayay warbaahinta ayaa madaxweynaha Mareykanka waxa kale oo uu sheegay in Iiraan ay hadda dib u degtay maadaama ay beegsatay saldhigyada ciidamada ee Mareykanka, taasina ay ugu filan tahay buu yiri argoosashadii ay dilkii loo geystay Generaal Qaasim Suleymani. Xukuumadda Washington ayaa sidoo kale sheegtay in cunaqabateeno hor leh ay ku soo rogayso Iiraan si loogu soo jawaabo tallaabada argoosiga ay qaaday xukuumadda Tehran. Arrintan ayaana u muuqato bilow dagaal oo labada dhinac ah. Inkastoo ay Koongareeska Mareykanku isku dayo in la xadido awoodda Trump, haddana Trump ayaa waxa uu iclaamin karaa dagaal haddii ay noqoto in Iiraan ay weerarto saldhig Mareykanka ku leeyahay, taasoo fursad u siinaysa in madaxweyne Trump uu awooddiisa madaxweynenimo ku iclaamin karo inuu dagaal u qaado dalkaasi Iiraan. Trump ayaana dhinaca kale dalalka midowga Yurub iyo Ruushka Shiinaha ka dalbaday inay ka baxaan heshiiska nukliyeerka Iiraan kaasoo uu dhowaan Mareykanku laalay. In ka badan 10 gantaal oo lagu suriday gudaha Iiraan ayaana lagu garaacay 2 saldhig oo ciidamada cirka ee Mareykanka ku leeyihiin magaalooyinka Erbil iyo weliba Al-Asad oo dhinaca galbeed ka xiga caasimadda Baghdad ee dalkaasi Ciraaq. weeraradan ayaana dhacay habeennimadii ay Talaadada sii bixisay Arbacaduna soo galaysay. dhowr gantaal oo kalena ayaana ku dhacay meelo masaafo ku jiro goobihii uu bartilmaameedku ahaa. Iiraan oo ka xanaaqsan dilkii loo geystay Generaal Qaasim Suleymani isla markaasna ku sheegtay in ay cadowgeeda dhabarka ka jebin doonto ayaa waxa ay sheegtay inay ka baxday heshiiskii uu Mareykanka dhanka nukliyeerka isla markaasna mar uu madaxweyne Trump sheegay in ay wada hadal la furi karaan ay ku gacan saareen, taasoo ay sheegeen inaysan rabin in wax wada hadal lala furo dalka Mareykanka oo ay sheegeen inuu yahay dal aan la aamini karin. waxayna sheegeen inay isdifaaci doonaan isla markaasna aysan waxba ka dhibi doonin awoodda Mareykanka ee gacanka. taasna ay sheegeen in Mareykanka hadduu isku dayo inuu wax dagaal ku soo qaado gudaha Iiraan ay beegsan doonaan wadamada saaxiibka la ah dalkaasi Mareykanka ay ka mid tahay dalkaasi Israa'iil. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaa tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.